soo dhawaada. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم. لما أنتم بوادي ما هذا سو دوادا arrimo badan oo xaqiiqo rabaa inaan ka hadlo si wuxuu jiraan waxa soo dhamaan caawa rabaa inaan dul istaago marka fadlan barnaamijkan hadii aad la socoto si share garee oo meelo badan gaarsii waxaan rabaa inaan iska bilowno horta anigu caawa aad baan u faraxsanahay waan qoslayaa wax kalena ma ahay waxaan arkayaa qoladii mooriyanta baraha bulshada MBB qoladii mooriyanta baraha bulshada markii horeba dulmiga ku taageerayay rooble magaranaysa daboordii ilaha waxba la dilay iyo waxba magaranaysa la qasay ayaa waxaan arkayaa caawo iyagoo baraha bulshada ka markaad furaya oo leh ilaa shalayto iyaga yiri Fahad baan xidhnay Soomaa shalayto dhan waxay lahaayeen waxay ku faraxsanaayeen inay Fahad xidheen inay Fahad magaranaysa garoonka Djibouti ka joojiyeen waxa soo dhan bay shalayto ku faraxsanaayeen laakiin caawo way la xumaatay waxay taagan yihiin dadkii haddana waxay rabaan inay been kale u sii sheegaan waxay dhahdaan taqaana Fahad isaga diyaaradda la soo heshiiyay Turkiga Fahad baa magaranaysa waxa wada watay mar waxay leeyihiin Djibouti iyo Fahad baa magaranaysa ay heshiiskan galay oo magaranaysa ay waxa laga dhigay nin magaranaysa ay la xanibay Fahad cidmay xanibin inta ba horta iyaga laga haya alif wax buu leeyahay iyo malaha waxa kale oo qarteen inay fashil noqotay oo shalayta fashilmeen oo yiraahdeen qalad baynu sameynay ma inahayn magaranaysa inay Fahad xarigiisa ku faano inay taageerna maaha war qofku dambi markuu sameeyo ilaahay baa fashilaya horta ilaahay baa idin fashiliyay Fahadna ka dhigay qof aan dambi lahayn ummadii Soomaaliyeedna markii horta midaan idin sheegaya reer nabad iyo nolol arrintu markii hore inaga way nagu jiiftay inagu halkaas la inoo galay markii hore dambiga oo dhan inaga la saaray dambiga inaga la saaray ayaamihii ugu dambeysay runta wanaagsan way istiilayno de indaad kaama wax ku waday ma garatay maalimihii u dambeysay oo dhan yaani arrintan ay kan tahliil markii hore si wanaagsan baa leenuga guuleystay kubadda waxa weeye waxa la naga dhaliyay 10 gool runtaan uu ka hadlaya arrinta ay kan tahliil 10 gool baa naga dhaliyay waan yaa bara waxa lahaa niyo haade warkii Fahadna waa kan imanayay taw maxaa dhici doona si noqon doonta ninkan markaa Fahad la leeyahay waa number 9 ka aynu leenahay weeriyahanka qura ee saacadaha ugu dambeeyna barnaamijka si shargray weeriyahanka horta farmaajo waa weeriyahan weyn dhowr weeriyahan bay haysanaa Mahdi farmaajo iyo Fahad nimanka noocaasa horta ayaan haysanaa markaas waxa la inagu lahaa 10 gool baa la inagu lahaa 10 gool baa la inagu lahaa intii sheekada ikraan socotay dadkii dad badan baa waxaan aaminay karaan in la dilay oo dadkii oo dhan baa wareejinay oo magaranaysa in wax la baadha la diidan yahay sheeka noocaas ayaa de suuqa laga iibiyay sheekadu way u iibsantay markii hore sheekada ikraan tahliil dad badan baa de daacadahay oo shiri wani wallahi waxaan waa run sheekada waxa weeye ikraan waxa weeye magaranaysa si wada shargaray fadlan si gudbiya sheekada ikraan markii hore runta wanaagsan inaga 10 gool baa la inagu lahaa 10 gool baan garanaya 10 gool baa la inagu lahaa oo inaga dhaliyeen MBB meel walba way gaarsiin sheekada ikraan baa la dilay heer daaynu dhaarano habeen walba maanu dilin bay gaarsiin dhaar bay naga keeneen waaya dhaartiisa maxaa ka dambeeyay af ka dambeeya baayay Soomaaliyeed af ka dambeeyay ayaa baay horta shalayto ayay deelan siyaasadda ma yaqaanaan Chaniska hore way nagu helaan laakiin siyaasad ay dejisan yihiin iyo mabaadi iyo principle siyaasadda ay ku socdaan ma jirto inagu way ka siyaasanahay iyaga way ka siyaasadda way ka dhaqaanaa dadka ay kiciyaan weyn dejinaa laakiin waxa weeye inagu haddii dadka ku kicina iyaga waa iyaga wax weey u dhamaanaysa iyagu wax ma dejin karaan badana siyaasadooduna waa defensive waa difaac siyaasadoodu waa difaac iyaga way iska difaacaan laakiin inagu offensive bayna laakiin arrinta ikraam marba wayna soo weerareen waxay markaas qura ay sameeyeen maxay offensive markaas weerar sameeyeen weerarkaas markaa waa gadmay oo dadkii oo dhan ikraam baa la dilay islaan la iska yani waxa yani sababaha ay u gadanteen waxa kamid ah hooyadooda iska oohinaysa
islaan la inan baa laga dilay qof walo qalbi jaacsan TV markuu daawado wuxuu leeyahay war islaanta inanteedu uu keena waxa run baa la moodayay marka islaanta inanteedu uu keena maxay islaan miskiinta loo dilay way ooyaysaa islaantii oohin baa marka ayaa la naga adkaaday markii hore oohin baa la naga adkaaday 10 goolna waa la inagu lahaa shalay 10 gool kama yareen inta la inagu lahaa hadda run doonaysan siyaasadana taqaanaa yani farmaajo waa yani wal magacaabistan iyo waxaan sameynay waa okay laakiin waxaan ku leeyahay kiiska ikraan tahliil inaga ayaa gool dhalinta 10 gool la inagu lahaa oo la inaga badiyay arinta ikraan tahliil shalay maxaa dhacay markaa shalayto iyadoo oo de markaa ay de nimankii daashoonayaan garta iyaga la runtii laakiin de qofku aanu siyaasiga ahayn qofku markaa siyaasiga ahayn guushiisa ma garto guushiisa iyo dadka wuxuu ka iibinay maxay ku salaamay soo sheegay guushiisa ma garanayaan yani haday deyn lahayn arintii ay oran lahayn war Fahad faraha laga qaado war ninkan aan ugu taataabina war ninku ha yimaado war ninka ma garan saayay xiritaan iyo sheekadaas laakiin iyagu de waa siyaasaddu waa laab la kacday siyaasaddu ma yaqaanayo wax iska ornay Fahad baa la qabtay hal la qabto hal la xiro wadanka ayaan soo gelin nimankoodii media ka qeyrin jiray horta shaytaan ogaaday inay eber yihiin eber siyaasaddu waa wax la barsaday siyaasaddu ma Facebook baa laga hadlaya ma imika markay caawa inay dabanka galeen ay soo galeen bixin leeyin wallahi shalayto wala naga cambuuleystay taagin warsaasa weligiin ba leedka cambuuleysan jiray weligiin iyo alihiinba sidaas la iska cambuuleysan jiray markii sheekadu halka marayso Fahad ayaa ma garan saayay garoonka ay yiraahdeen ninkii runtiina Fahad haduu ima la war badan buu sheegi lahaa marka waxay qiyaaseen isleedeen maxaa sameeyay laakiin iyaga waxa wanaagsan lahayd siyaasiyan inaanay ma garan saay Fahad diyaarad iyo waxa ka reebinay farsamo kala sameeyaan ayay wanaagsan lahayd laakiin iyagu waxay target gareeyeen maadaama ninkan xog badan hayo sheekadina ay fashilmayso inay ninkii diyaaradii toos ula hadlaan sheekadana waxa toos uga dambeeyay ra'iisul wasaare ninka waqtigiisu dhamaaday rooblaan uu kuma sheegin karo ra'iisul wasaare sax ma waa ra'iisul wasaare magaca ra'iisul wasaare ilaa hadda waan ogolaan oo rooble laakiin waa ra'iisul wasaare aan magacu yaala xafiiska wuu iska fadhiyaay inuu duceeyo ma ahan wax kale oo magaran saayo xiro oo kale u haya de ma jirto qofna ma magacaabi karo nin leeyahay qofna ma magacaabi karo qofna ma eeri karo hatta ku magacaabay wasiirka maanta waati meelaha la ceybsanay darkiisin horta rooble qof uu magacaabay hagaagay lama aragba rooble qof uu magacaabay haduu rooble waa la isku habaaraba habaar baynka Soomaaliya ka noqotay rooble ku magacaaw rooble saq dhex ku magacaaw marka rooble qofna ma magacaabi karo qofna xil kama qaadi karo laakiin waa ra'iisul wasaare wali magacu yaal say u faham ninku waa magacu yaal laakiin waa maqaar sarde waa qof maqaar weyn waa qof dhintay oo kale waa qof meel iska fadhiyo ra'iisul wasaare shaqo qabanay xafiis kama shaqeynayo cid ma magacaayo cid ma eriyo wasiirada kama ma qaadanaya cid dhageysanaysa yani doorashadina waa laga wareegay doorashada yareedu maamulayna waa laga wareegay meesha marka aabihi baa ku jabay aabihi meesha marka maqaxid Soomaaliya ma habarti baa iskale dawaanu meesha dhaafo weyn doorashada waa laga wareegay amaankiina farmaajo ayaa ah taliyaha guud ee ciidanka fadlan sii shargaray farmaajo ayaa amnigo dhan haya ama national security noqoto amaanka taliyaha guud waa farmaajo isagoo farmaajo wixiisi ma wareejin u haystaan farmaajo waxa wareejiyay waxaas ma doorasho ahayd doorashadina waaba la wareegay garay waa lagu dhigay wixii Soomaa Muqdisho lagu ma dhigay isagoo halkaas soo fadhiyaa dhakada weyn soo dhigay ila aqal ma leh siyaasi ma marka waxa weey shalayto markii 10 gool la inagu lahaa ama de ma garan saayay runtii ay de arinta kiiska ikraan ma garan saayay nimankana ku adkaadeen shalaytiis gowraceen waxaanay ku faaneen inay Fahad Yaasiin diyaaradda ka reebeen iyagu xidheen ma garan saayay waxaanay lahaayeen inay soo quriyeen nimanka de roob taageera hal la xiro waa sax ma soo galiyo wadanka oo ninka maxad dambiga marka maxad u saaraysa marka hadda la wadanka ma soo galiyo war qofka haduu dambiile la raadsado la eriidaan ayaan naqaanay ninkan aleedin wadanka ma soo galiyo hadhow marka uu wadanka ka baxadana hal la raadiyo maxay tahay waalida noocan maxay tahay ninka maxaad u lahaydeen Turkiga ka baxsaday maxaa u lahaydeen waxa weeye baasaboor kale ku duwaya ninku dadka waxa ugu sheekeynaysan bilna baa ku sheekeynaysan bilna ayaa dadka waxa ugu sheekeynaysan fal nasiib muuqaalkan si shargaray bilna baa dadka waxa ugu sheekeynaysan oo lahaydeen ninku waa baxsaday Fahad Yaasiin hala soo qabto talaayo Fahad Yaasiin Soomaaliya ma iman karo caawadaasna waxa ay leedahay horta Fahad Yaasiin xabar ma joogo warban maqliye leh Fahad Yaasiin baa soo galay oo xamar yimid Fahad Yaasiin
hadduu xamar imaado saameyntiisa waa la dareemayaa saameyn aad u weyn buu leeyahay xamar ma joogo ilaa hadda Fahad xamar ma joogo laakiin sida de qorshuhii uu imanaya xogihii uu hayay iyo dokumentiyadii iyo wixii ikraan ku saabsanaydna Fahad Yaasiin baa horta markuu intuu Fahad Yaasiin imanayo ayaaba beentii ka hadhay beentii la sheegay Fahad Yaasiin intuu imanaya ka hadhay shalay tan la rabay in beenta shirkii amniga dib baa loo dhigay dad baan arkay maxaa shirkii amniga dib looga dhigay dee ninkii xogta hayay baa maqan oo diyaaradda kala hadhay oo dalhayd waan xaray adigu Soomaaliya waan xaray maxay xiriis waninku hadduu dambiilay maxay xiriis Djibouti u xiriis maxaa diyaaradda iyo wuxuu la socdo iyo ninka halaba ninka Fahad diyaaradda lagala digay runtaan ii sheegay diyaaradda ayaa lagala digay Fahad dalkan Djibouti la raadana sharci daradiisu waxa weeye sharciga kuma dhaqmaan sharciga kuma dhaqmaan waa dad aad soonayso talo xagee ka yimaadeen hadda wadan Faransiiska gumaysan jiray oo de sharciga iyo nidaamka Faransiisku waxa weeye waa si wanaagsan buu ku dhaqmaa diyaaradda ayaa lagala digay Fahad Yaasiin waana magaraansa wax sovereignty ama wax qalada weeyaan in qof diyaarad wadan transit ku yahay oo uu ka digay in la soo dajiyay VIP da la geeyay la xiray oo la yiri magaraansa ay Muqdisho ma socoti diyaaradda wax noqotay iyo diyaaradda banjartay iyo baylood ba caloosha dhaqaaqday iyo waxaasna waa wax iska beena Fahad waxa weeye ninka Rooblo la yiraahdo ayaa kuwan Djibouti la soo hadlay sheekadina way qaateen waxay yiraahdeen ninka ayaan lagu soo deynin diyaaradii maanta way timid maanta diyaaradii waa timid laakiin diyaaradda iyo dadka la socday looma soconay waxa laga reebayo in Fahad bay ahayd marka diyaaradihii Turkiga mar hadii la isku ma hadlayn karo diyaaradda Turkiga oo dambe in la raacama wadanka Turkiga wadan awood u ahaa Djibouti oo la xisaabtamay ahayd oo raaq qaladka adigu samaysay qofka diyaaradda wadanka ay laga leeyahay hadii laga dego shirkadda diyaaradda iyo wadankaas ay ceeb ku tahay ceebta marka waxa iska leh wadanka Turkiga in dadkiisi ama dadkii diyaaradda saarna isbaaro loo dhigto waa ceeb weyn ceeb bay ku tahay waxaan filayaa weegan arrimo badan oo siyaasi ah dhici doona in wadanka Djibouti xiriirka Turkiga u jarto oo magaran sahay arrinta darteed waayo wax waa la baarayaa wali waraaq kama soo bixin dalka Turkiga laakiin Ministry of Foreign Affairs waxa la sheegaya wasaaradda arrimaha dibadda ee wadanka Turkiga waxay culay saari doontaa isla markaana xiriirka u jari doontaa dalka yar Djibouti haddii Djibouti xiriirka loo jarana khalaas wadan waa iska garanaysaa khayraad ma laha wax ma laha way dhimanayaan marka waxa weeye Djibouti iyo Turkiga iyaga xisaabtamaya anigu taa ka hadli maayo Djibouti Turkiga waxa ay sameynayso iyaga ayay u taala hay'adaha ECAO iyo hay'adaha magaranaysaa ay duulimaadadu waxay sameynayaan iyaga u taala waana qalad weyn anigu saan sheegay xalatan waan sheegay qalad weyn oo gafay in Fahad Yaasiin diyaaradda dhexdeeda iyadoo diyaaraddu toos u socoto oo Muqdisho ku socota oo 2 saacadood qura sii socota in lagala soo degay ninkan oo qura la yiri soo deg hay'adda Interpol baa qabatay waxaasna waa been Interpol ma qaban qofku dambi ma gelin Fahad Yaasiin waa dambiile la magaranaysaa dambi dhakada laga saaray beena dambigan horta waa beena wala ogi gabadhana may dhiman ikraan qof la yiraahdo dhintayna ma jirto marka sheekadan iska beenta aba fashilmayso Fahad siyaasa lagu dhagay ilaa haddana dad baa waxa ku haya mataqaana Fahad wadanka ma iman karo yaani Fahad wadanka ma iman karo haddaad maqasho qof leh waxa weeye xaqiiqda lama sheegi karo weyn xaqiiqda ikraan taali lama sheegi karo in la sheegana uma baahnin weyn haddaad maqasho qof leh Fahad wadanka soo galay waa qalad oo ninka qofku ma hadii aad magaranaysaa aad tiri magaranaysaa waa laga shaqsay oo waa qof dambi gala oo dambi baa lagu shaqsay wadanka Soomaaliya inuu maadam maxaa diiday bal sheeg maxaa diiday ta kale qofka maxaa Djibouti ugu xiraysa ilaa qofku uu soo socdaabe haddaad ma xirayso garoonka aadan cadab uu ka soo degayay haddaad xiranayso leedahay waan xiranaya meel qabsatay halka qabsatay ya war waxaan yaan la soo iimanay war yaare Soomaaliya war waxa weeye nimankaasi 30 gool baa laga dhaliyay 30 gool shalay toban 30 gool bay iska dhaliyeen marka way fikireen way la xumaatay inay soo hadleen soo markaysi ilaa xalayto waxa la saxayaa ma taqaana waxa la saxayaa waxaan oo live fad arkaysa waxa la saxayaa sheekadii Fahad Yaasiin baa waxa la leeyahay imika waxa dadka laga dhadhicinaya iyo Turkiga magarasa diyaaradda loo soo heshiiyo diyaaradda hadda waan diyaarad tigir soo jeestay weyn tigir buu soo goostay ta kale Fahad Yaasiin diyaaradda Turkish Airways hore uu musafir jirinba waa markii koobaad ee uu soo raaco Fahad Yaasiin dadka taariikhdiisa garanaya waa markii koobaad ee uu soo raaco diyaaradda Turkish Airways masaakiin baatiin masaakiin
ninkan wuxuu soo raaci jiray diyaaradda Qatar Airways maadaama ninkani magarasa national security yahay oo arrimaha sirdoonka uu yahay de nin aan xataa sawirkiisa ba lahayn nin sawirkiisa lahayn maadaama uu yahay wuxuu yiri route u bedel buu yiri waayo wuxuu yiri Qatar baa laga filayaa ay meelahaas in de hadii la doono laga afduubay ama dhibaato lagu sameyn doonay marka route ku bedelay flightkiisa wuxuu ka soo dhigay Turkiga حتى ديارة قادسة ما هو فهد بعد ديارة الله الله فهد بعد ديارة مقران صاي العكس يجي وحاسم ما شفته ديارة حتى بيلوتكو فهد مو قرني ولا يعني نكني وانين مقران صاي سردون كأدو في عوي ما قف كان عايد اللي كذا اللي وشوا يدير رابل يسوي مركب بحية مركب رابل وحي يسوي ولا وجي يسوي سر ما لحد يسوي رابل وانك سرتيس أي كينيا الله آخر سنة وهو كينياتا ayaa sirta la akhrisanay wadanka problem marka dadku waxay ku leeyeen mataqaana Turkish Airways war Turkish Airways markan oo qura ayuu soo raacay Fahd Yaasin nin la helo ma nin meelahaas lagu arkayo iyo shalayto waa arkaysan in suurada la orday waa arkaysan Fahd Yaasin baa sawirkiisa la helay waa nimanka ku naxsan sawirka Fahd Yaasin nin aan la arkin oo mar oo sawirkiisa laga baqanay ma aragtay waxaan ku qoslay madaarku qarxinaya waxa weeye dhibaato sameynaya lacag busida والله نكاس والله لاندير وين بنان دقي نكا عن وحبة قريب مسيتو بس كل مسيتو شندد بوسيتا وحوي ديارة صراعي بالديارة عرمي وداين هدير هو شيء هداني شرس كحار هاي أنا بين ناشن يو مقرن ساي بها أنا كوين مي داين إنه فهد وطن كصاقله نما كهور تاجنا إنه فهد وطن كصاقله أي دبعت هذا كنت هاي أي دبيش كقدر أنت هاي والرابلة ينت اللي شوكته أو يري وارنكن النجاي لالي ماذا النجاي لالي يعني يقول نفترض ويوجيهن وده سياسة دوسنا ده مكان صحيح ودني سياسي هاي هو ده كساريو ويكبقنين هل قف بيكبقنين هل قف بالكبقنيا حدنا سياسة الله شيء حدنا والله فاني بالفان كأد هاي سوام حي سببت الصور كأد فهد ياسين والأردن سمحيت روبلا تاجر تاني ما روبلا لا أردن وأنا كسور كيس أوديك نوال بميل بصوصات وكيف فهد وكا محل صار ينسى ما تاجر تسمع سكت سور كيس أذيرك عايو روبلا عايو سور كيس كورة الله هاي سوكاس بلو حكوا ترى روبلا سور كيس مسوق هذا وهي روبلا دوي قرني أنا وحبا هين بقرني صور بيسوق هذا الله كان فهد هذا صور ريال هذا فهد بلقس هذا شنط هذا سنبو يجي هنيو نيك والله نيكني فهد لي هذا حتى حسن شيخ بعاو كقيل لي أركيسي حسن شيخ أي عاو كقيل لي والله في صقري لايف وضم كان رجال اللي قوامي واحد دورش اللي دي دورشين ولا قاعد روبلا دورش اللي دي دورشين ولا جوريش فرماتشو ده شقدي سوا تشوتي wuxuu ku leeyahay farmaajo markii horeba wad magacawday imikana han oran waan eri taas aad u xaq u maleeyay xasan sheekhow madaxweynuhu isaga magacaabay eriga maadigaas kale wuxuu ku leeyahay han oranin waa la eri han oranin kula dawlad ugu shaqo u sameey madaxweynuhu isagana magacaaba isagana wax eri kara xaq isaga wale taa farmaajo xaq wale aduu xaq laakiin maleeyay inaad tiraahdo lama soo eri karo شرعي قاعد يقول مدحوين بس كنا قطب سننتل سن نصيبات كنا قطب مدحوين شرعنا ما تقاني قانوننا ما تقاني نكيل الصوم عودة فرمات ماشى كنا الحل هذه هنورن نيانا نقل ولا إري خير بس إري هذا دي صور رجوسارة ما رجوسارة البوكين مدحوين أي رجوسارة كيف حق ولا إنه خيريو دي مدحوينها تولى واحد داسك شعب كاي كتشن كرامة هدود إنه إري هدود إنه ديني فرمات أنا شقدي وياك جوتي مو إريين إلا هذا لكن سنة وحنا وين marka waxaan horta halkan aad ugu faraxsanahay mooyaantii baraha bulshada waa laga cadaadiyay waxay leeyihiin waa qolada CBB wallahi billahi tallahi raggan way naga adkaanayaan lama dhigi karin bay aaminsan siyaasadda ragga hogaaminaya waa farmaajo waxa weeye waa Fahd Yaasin waa Mahdi nimankaas oo buuqbuuqaya oo qeylqeylin wiliga markis farmaajo meelaha ka qeylqeylin markis farmaajo lama arkaba isagana Soomaalikan problem maalin walba meel buu taagay oo ka hadlaya وحوي يعني حفلتها تباديدو كله نكنا سياسي ما هدي ماشى والله كانون دي فرماتهم بقى ماشى كاني حسن شيخ نك اللي سياسي ما كاسا وفر حسن شيخ اللي ما كدر فضل الله يقول حسن شيخ بقى وفر حسن شيخ لو انك شرع الدراسة سميني له فرمات شيء انك هن اورن بكلي رئيس وزراء ولا يري
ninka ma garanaysa ay diidan ba in ninka la eriyo diiday inta markaa luuqa dhiga inta lugahana dhiiqo u galiyo ayuu wuxuu leeyahay yaan la eri ninkan madaxweynihii magacaabay ka amar qaadan waay adigu waad eri leh qof aad magacawday oo shaqadii aad u diratay qaban la waad eri leh qof walba uu eriya ma yani waqtiga baa dhamaaday oo lama eri kara ma waa la eri karaa madaxweynuhu digreetu leey digreeta ma taqaan horta xasan sheekh digreetu leey hadduu doono isagoo maalin ay u harsan tahay doorashada ka harsan tahay eri karaa ra-iisul wasaaraha isagaa meesha keensaday waxaana loo orordaysaan rable beenta u sheegaysaan meelaha dhigdhigaysaan ee weliba haddana aad dhabarka kasii tooganaysaan leedin waxbuu xidhay sheekada roobla wax xidhay ma wax roobla caawinaya maya ma caawinayso roble dadka waxay u arkeen oy ogaadeen dadku waxay ogaadeen xaqiiqdii inuu roble waxaan ku lug leeyahay beentan sheekada ikraan tahliil wado ayaa la ogaaday idinkuna waxa weeye waa usii caddayseen in fahad yaasiin la xidhay soo ma fahad yaasiin waa la xidhay walaad sala tusma maanta ma diidantay waa la xidhay roob la xidhay waa sax anigu ma diidin roob la xidhay roob la diyaaradda diiday inay waddanka soo gasho roob la diiday inuu fahad yaasiin waddanka imaado isaga dhib ku tahay sababtay dhibta ugu tahayna waxa weeye warka caddaanaya war caddaadana lama doonayo been in dadka lagu sheekeeyo la doonayo habeen walba lagu shaaheeyo gabar baa dhimatay fahadna waa baxsaday imika wax soo tiradaan fahad baa haddana baxsaday dha warya anagu waad ka horeynaa siyaasadda laakiin ma taqaanaan waxba raaligelin soo bixinina waxba sheekada haddana ha bedelina horanina maye fahad yaasiin cid shalay ta joojisay ma jirto meelaha waxay ka leeyihin fahad yaasiin cid joojisay ma jirto diyaaraddu leeshiye kula ninkani diyaaradda gadar la idhaahdo fahad yaasiin diyaaradda quleed ka eegi kartaa waa gadar waddanka gadar ayaad ka eegi kartaa sababtu usoo qaadatayna waa arrimo diblomaasiyada ninka sirdoonka ana lama garan karo wakti waddanka imanayo xilligu soo gelayo islaamna ma ogaan karto mid life ka qayliyaana ma ogaan karo siyaasadda sirdoonka saas ninkani sirdoonka soomaaliya shuruuddii waa buuxiyey ninkani nin cumaamadiisa la haysan karo fahad yaasiin maaha idinkaa sheegaya inuu khatar yahay sawirkiisa xataa lalaayay ma fahanteen kolba sawiradii hore badankan sawiradan lasoo qaaday maaha fahad yaasiin maaha ka madaarka uu joogo qola kaasaa sawirkiisa waxa kale waxa weeye waa marar meelo kale oo ku galgalay weyn ma fahan markaa sirdoonka ayaa waxay tahay inaanay islaam walo caanadayba aanay ogaan islaam walo oo meel ka qaylisaaba aanay ogaan warkiisa sirdoonku xilligu baxayo lama ogaado xilligu soo gelayna ma gelaysa nobody og ma jiro fahad yaasiin ha ku dhex waalan adeerkan waa landheere sirdoon weyn ninkan maaha roobla maaha oo xataa caawa waraaqda soo saaray ciyaalka ogin ciyaalka og waraaqda caawa soo saaray roble waa fashil weyn waraaqdu caawa qoray wallahi waxa la leeyahay roobla caawa wuxuu labada habeennimo ayuu wax soo ku wariyaasha soo qor waa aragtay imsa jeer ayaa rooble warkiisa uu magaalada sii galay masha imsa jeer bal habeenkii ugu dambeeyay uu magacaabay kan wasiirka miyaan sheekada la siiyay nisir lama hadano meel yani tolkii iyo islaamay odayaal baa WhatsApp baa lagala talinay soo xilay hebel baan ka dhigayaa oo 2 saacadood kadib ayaa waxaan ama magarasa magacaabaya 30 milyan haysta saa meel walba saas u urday waa la magacaabaya noocii bay noqonaysaa noocii ay yiraahdeen waa la magacaabaya markaas rooble sir ma hayn karo waa sir bal lagu metelgelinba ninkani tukaan loo ahaa tukaan xidhxidha oo magarasa taydha iyo milixda xidhxidha siyaasi maaha aqoon-yahan maaha nin maca wasiir soo noqday maaha agaasimaha uu soo noqday waa kii war rooble anaa ka siyaasisan aniga mawlida ka siyaasisan oo xilal soo qabtay oo safaarad ka soo shaqeeyay rooble weligii safaarad kama soo shaqeyn wasaare arrimaha dibadda kama soo shaqeyn waxba ma soo baran waxba magaranaysaay agaasimo waaxid xataa ma noqon dowladda Soomaaliya meeshu waa jug soo dhacay weyn waa qof soo dhacay weyn jug soo dhacay dad maqasho waa rooble ma fahant meesha xal baa loo keenay isaga siyaasi ma waxa la doonayay farmaajo wuxuu doonayay qof magaranaysaay aan waxba dib badan fahansaneyn oo dowladda ay aanay khilaaf dhicin oo hawsha isagu wada shaqada waxa wada farmaajo wadi jiray wasaaradda arrimaha dibadda iyo dadkaas waxa soo dhan dad aqoon-yahana meesha la keenay farmaajana magaranaysaa meesha keeno oo dad caadi keena hal qof oo roob la soo magacaabay weligeed ma jirto iminka markii dee la yidhi magaranaysaay dee magacow iyo waxaa sameeyo farmaajo ka hor imaad oo farmaajo dee lugaha dhiiqada loo gelinaya isaga rooble ayuu da wax magacaabay laakiin weligii waxba ma magacaabi jirin
waa ninkan de siyaasina ma aha dee qof siyaasi oo laga sheekeeyna ma aha miqaamna muu lahaan jirin soo ma garan waxa weeye mar wuxuu ka sheekeynaya maqlayay uu lahaa Somaliland baan joogay Somaliland waa tii la soo ogaaday waxa weeye Somaliland markii uu joogayna wuxuu ka shaqeyn jiray barakacayaasha dadka barakacayaasha marka ninkan waa barakaca caadiba barakacayaasha ku shaqeyn jiray gudoomiyaha barakacayaasha xaafadda wuxuu ahaa Maxamed Moogi magaalada Hargeysa shaqo weyn xagga ka weyn xataa lama aqoon Hargeysa markii uu joogayna yaanu iska dhigin nin siyaasi oo wax weyn ka soo qabtay oo hay'ad ka shaqeyn jiray barakacayaasha gudoomiyaha barakacayaasha xilkaas oo quraan u haynaa anigu Rooble gudoomiyaasha barakacayaasha meesha maaha ra'iisul wasaare lagu dhiibay waa boos aad iyo aad u sareeya يعني رجي أقويها ندها يوسف جرادو كله يوسف جرادو ولا أقويها ما فهمت فوسية حاجة هذا وكله وسير كريمة بدأ رجع سوق بنشري ما هذه وكله لما كان نوع عسى قوان تلاقي لود دي وياه قف كان ملهاس كفرديه بين با ويكر ريموف تاعها ملهاس دتك اللي يبين اللي ورقف كان يو ورقف هي ماشي كان وحارته كين كار صدي فرماتشو إنكارتوس ninkaas wallahi waxa uu og yahay taa ma jirto wararkan iyo waxana waa dad baa waalay u sheegay farma marka Rooble ma hanin aqligiisa la tashan kara ma hanin go'aan gaari kara ma hanin arki kara waxa ka dambeeya waayo haduu aqli leeyahay siyaasadda wax ka yaqaano Fahad Yaasiin muu raahdeen Djibouti baan ku xiray Fahad Yaasiin ayaan Djibouti ku xiray uu la soo taagay oo dawladdiisii iyo ku dib magaranaysa wasiirada ka shaqeynayay afartii qof ee la socday ayaguna leeyahay waan xunay ninkaas wadankana ma soo gali karo hadduu de siyaasadda yaqaan xoran la arintaas waa qalad bay noqonaysaa de haddii ninkii aan dambiga ku sheegaynaa wadanka ma soo gali karo dadka way magaranaysa way nagu soo jeegsanay waxay leeyahay waan naga tagad ninka daba waxa kuma haysataan de ninka magaranaysa ninka dayda maxay u leediin dambi u gal hadaa wadanka u diidayntiin ninka wadanka markaas uu iska qaban la tan iyo boqol magaranaysa fashil oo ka daran ayuu dhex fadhiyaa ninka la Rooble habeen walba waa fashilmay amnigii farahu ka saaray waa fashiliyay horta amnigii buu fashiliyay sirdoonki buu fashiliyay magaranaysa isagiiba ninka qaladaadku galay ugu koowaad horta waxa kamid ah qaladkii ugu weynaa uu galay ninka horta markii koowaad waxay ahayd markii Kenya tagay Uhuru Kenyatta ilaa uu yaqaanaa dhaqanka Soomaalida waxa weeye Soomaalidu maalinta ku arkaan adigoo nin ajaaniba ama dulac u xiraya ninka wuxuu ku magarasaaye wuxuu ku waana qaadan la Xasan Sheekh markii uu Kenya tagay si shar gareeb fadlan barnaamijka xadiis weyn waxaan caawa laga hadlayaa Xasan Sheekh markii uu tagay magarasa Kenya wuxuu sameeyay qalaad ku sameeyay maxaa kamid ah wuxuu sujuuday ciidan magarasa Kenyaati oo la laayay buu sujuuday dadkii oo dhan Soomaaliyeed dadkii oo dhan way naceen Soomaalidu qofka madaxda u ah way nacab yihiin inuu isbahdilo ama la ihaanaysto isagoo oo magaranayay la arko isagoo dulac xiraya nin magaranaysa kastumada ka bedelaya xataa Soomaalidu way nacab yihiin xataa waxay haday arkaan qofka madaxweynaha isagoo kursi qaldan la fadhiisay ay ka xanaaqaan Soomaalidu waa dad qabli farmaajana wuxuu soo celiyay qabkii dawladnimadu soo celiyay farmaajo waxaan oo kale Uhuru Kenyatta isaga soo waqa farmaajo u baahan farmaajo waxay samee wadarkiisa inay uu magaranayay farmaajo Abiy Ahmed uu Muqdisho imanayo kan kale imanayo muxuu ahaayay Uhuru Kenyatta wadanka imanayo farmaajo xataa mobil kama qabto waxan uu yasa waxaan isaga macawsaha loo xirayo uu yasa farmaajo telefoonna kama qabto mana dhageysto mar walbana isaga ilaha my friend ahayga Abiy Ahmed isaga my brother ku yiraahdo farmaajo laakiin ninka isagu iska daa my brother inuu yiraahdo la gelay faraha magaranaysa meesha xun la gelay faraha dhixirka ninka faraha la gelay waa waxan de aan wuligi madax aragday Uhuru Kenyatta qof weyn buu haystaa waanu qoslay waarkiisa uu ku faraxsanaa soo ma garan marka qabkii Soomaalinimada ninkaas horta dhulka ku dhuftay haddaad Rooble taageertay hadii kaleba qabkii Soomaaliya aakhir u diray wallahi ku Hargeysa joogay iyo ku macaan dad dawladda Soomaaliya aan taageerinba ayaa lahaa waxan qof kale muxuu miskiinka ayaa soo lugay waxan miskiinka ayaa soo lugay dad baa sacabka u tumaya qaar baa de waa kuwa soo dayuusin way waa duus ninka ama naagta leh Rooble ayaa Uhuru Kenyatta macawsta wuxuu ku faraxsan waa dayuus weyn ma hana Soomaali qofkaas ma
soomaali maaha sax soomaalidu dhaqankaa way ka xanaaqdaa dhaqanka suuliga in biyaha la dhigo nin guntiga loo xidho iyo cumaamad iyo waxaas dhaqan maaha qaar baa waxay ku leeyihin dhaqanka soomaaliga wuu baranaya Uhuru Kenyatta miyaa dhaqanka soomaaliga la baraya war soomaali waa yaqaana soomaali wuu la jooga ma garata soomaali wuu yaqaana maxaa laga baraya soomaalidu waxa weeye aabihii bay ayay biilin jireen soomaalidu soomaali baa dhaqan la baraya waxaan ku sheekayna Uhuru Kenyatta soomaalidu waa yaqaan dhaqankooda waa yaqaana 100,000 oo jeer xafladood oo ka soo qayb galay roob la dulliyo qof liita oo ilaahay ummadda hor keenay kaas ah ha ku sheekaynin dhaqan buu baraya dhaqan waxaas Uhuru waa inay yaqaan waxayna yaqaan laakiin waa la bahdilayay iskamu garan waxay kaga sii daray haddana macuusti buu xiray haddana cumaamadu buu xiray waxaana isaga soo iibiyay uunsi buu qaaday war qofkan waa la iska yeeshin qofkan ra'iisul wasaare maaha yani diinta islaamka waxay sheegaysaa qof muslima maaha qof gaari inuu ihaanaysto ma ihaana anu dareemi wayna ihaanadu waxa weeye duleys in la dulaysto qofka muslimka ma oo cagta madax laga saaro la dhacdo kaale dharka ay xidho kaale waxaan sameey waxaan iman maray macuusti buu xiray inuu iskaga tago haddana wuxuu xiray shaarki haddana wuxuu xiray maxay cumaamadii haddana waa la qoslaya haddana waa la taagay waxaan in laga duubay macaamudeyto ya isaga laftiisu waxaan malaynayaa muus lahayn waxaan waa la duubaya ya de wax kale oo aad u samaystay haddii jirana kulli de waxa weeye ma garanaysaa waa dhibaato weyn baa ku haysata haddaad waxaas ku dhiirinayso wallahi ma garan waad sharaftii baad dishay soomaali weligeed lama arag waa qof wada macama muuse bixiya macaamiisha tagi si caadi u salaami barriisul wasaariye dhammaay waddanka faroole dhaame faroole cabdiraxmaan faroole wuxuu tegey dhowr jeer buu tegey Nairobi wuxuu la kulmay ma garanaysaa ninka la dhahdo Uhuru Kenyatta aabihii ragaas maca Uhuru la kulmay faroole xildhibaanada Soomaaliya ayaa dhaama rooblaan xildhibaanada dawladda Mahdi Guuleed baa la kulmay sidaasna yani isuma hoos dhigin si caadi oo saaxiibtinimada Mahdi okay si caadi soo wareysanayn yani weligood yaala xataa xildhibaanada Soomaaliya dawladda xildhibaanada ku jira markay Nairobi tagaan ninka way la kulmaan wax weyn kama soo qaadaan dharna uma xidhaan ismana yiraahdaan wuu ka sareeyaa isma yiraahdaan way Soomaalinimada qabbile qabkii Soomaalinimada la sheegayo ninka aakhira u diray waa ninkaas miskiinka ah markii hore sababta waxaan u sameynay ma taqaan rooble markii hore meesha qaxoonti buu ku ahaa dadka dhan marka adeer anu de qaxoonti kuma ahayn Kenya haddaad uu qaxoonti ku hayd oo ma garanaysaa ugaalida laga siin jiray meesha dadka Soomaaliyeed saa moodi ninka meesha qaxoonti buu ku ahaa oo ku balanbalansanaa yani nafta ku haysi meesha marka Kenya isagoo uligii alii baan aragba xataa wasiir arag ayaa ra'iisul wasaare laga dhigay niyo dadka la magacaabayna waxaan leeyahay dad meelaha ku baaba'san in la soo magacaabana waa qalad kay leedahay weyn taas nin Kenya isagoo jooga aan xataa agaasima Kenya aan weligii arag hadii ra'iisul wasaare laga dhigo de madaxweyne Kenya ilaan wax weyn buu yaqaan bariga hore dadkan Soomaalidu ma yaqaanaan oo meesha kamay dawrsan jireen oo meesha waxba ugaali kama cuni jireen dadkan kale ma yaqaanaan Uhuru Kenyatta waxa uu yaqaanaan doofaar weyn bay ku leeyihiin doofaar ay weyn muxuu yahay waxaas foosh xun ya waxa weeye waxaa soo miiran in meesha waaba kuwa ma garanaysaa iyaguna meelahan wada mid la basadir soo ma arag mid la meelahan basadir wuxuu khamriga ku cabbi jiray Tanzania khamriga ku cabbi jiray magaciisa Kimbusi la dhahday Busina waa dabada boqorka dabada la dhahday magaciisa sharaf kuma laha Tanzania waxa weeye waxaa soo miiran baa haddana Muqdisho lagu karaameynaya oo xalay todan hablihii Soomaaliyeed isa sawireen saas la isu sawirey waan yaabaan aad baan la yaabay sawirada xalayto mobilka tolo saas sawirkaas loo galay la ninka la dhahdo basadir waxa weeye basadir wadanka Tanzania sharaf kuma laha karaamana kuma laha xataa waysan caan kama aha laakiin Soomaaliya yani wax walba Ilaahay u soo diray dulli walba iyaga kor u qaaday ma fahad marka waxaan leeyahay okay waxay noo soo direen kii ugu walaasoma kii ugu liitay noo soo direen haddaba waaye hadii ay inagu aanu qabanay basadir show iyaguna Tanzania waa inay show qabataa aways baafu show oo qabtaa markaas in kala joogayna basadir baan u qabanay Soomaa show iyaguna aways baafu oo qabtaa hadii kale meesha cadaalad darra ka jirto Tanzania Dar es Salaam waa in aways baafu ay u qabtaa xalayto dadka $15 baa laga qaaday
$15 baa laga qaaday muxuu meesha la soo bandhigay sambuska wani weeda wani muqdisho wallahi boqoto doorba ninkaas kotor ayuu hashoogisay horta waxaan ku qoslo taqaana muqdisho is dhageysi baa yeelas dhageys dad wax dhageysta anigu laba arrin baa horta muqdisho kula yaab wallahi qofka is raba inuu caan noqdo haddaad rabto inaad caan noqoto magaalada qofka caanka kor sii qaada ee hawada sii gelisa waa muqdisho waxaan ku qoslay mataqaana ninka la basadir kamera maanka meesha joogay haddaad arkayso 200 oo dhalinyaro kamarad wada sitaa jooga meesha wani dadka muqdisho kamarada xagga taw ma bilaash baa lagu siyaa baash kamarada ma bilaash baa la isku siiyay 200 oo kamera maan wiligiyo limu arag hatta uu yaabay isaga laftiisu basadir xalta waa yaabay hablii Soomaaliyeed saas war fiidiyoyadii meesha balanso shay ay tusay sugan waa yaabaysan TikTok guud ka buuxa TikTok ka buuxa ninka caawa xalta waa baashaalay ninkaas waaba yaabay xusul waxay Soomaalidan hablii Soomaalida quruxda yaabaysi cadar ku soo uray ayaa waxa dulligee waxaan horta timaha gabigiisa de nooc kale weey shaydaan buu weey oo shaydaan kala sheegay oo nool weey basadir kaasi soo la galay way isku dilayeen waliba yibanay aan la galay okay wadanka Tanzania waxaan ka codsanaa we are question from Tanzanian government to fight Aweys Bafo as soon as possible marka iyaguna dawayn Aweys Bafo naga qaataan Aweys Bafo ba Tanzaniyiinta u qabanaya xaflad waa inay noqotaa hadii kale ninkan naga baxo hadii kale Aweys Bafo ha loo bixiyo King Bafo ha lagu magacdo wallahi saasi noqonayso ninkan waa sikhran khamri buu cabay maalmo dhayto markii wuxuu yiri meeshan ku cabay buu yiri ma garan sahay waa Tanzania waxa ku sheekeeyeen khamriga uu cabaa waa nin aan diin haysan dhaqan haysan dumar iyo bari buu ka sheekeeyaa King Busi baa laga King Busi waxa Busi waa dabada weyn boorka ma fahanti marka waxa weeye anigu ninkaas de waan la yaabanahay ma Aweys Bafo sababta anu keenay waa basadirka Soomaalida Soomaa marka Aweys Bafo wax cabsan wax cabaya hal la geeyo Tanzania iyaguna ka soo qayliyaan ma qaadanayaan Tanzaniyaanku waa cusuriin weey ma ka qaadanayaan Aweys Bafo baan soo diray haday Soomaaliya tiraado ma hano soo diray weli oo maxaa ku diidaysan basadir baan noo soo dirtoono ay dhalayo sikhran dhalay oo dhalada iyo dhala inta leegbo hal mar cabay khamriga soo cabo ibn aadan u cabaa ma jirto shirikaan dhan oo khamriga goosanay ma fahant marka Aweys baa lidii soo diray Bafo ninka u diyaariya magaranayay qarash u diyaariyo riwaayadiisa gala $15 baa dhalinyarada laga qaaday $15 ayaa laga qaaday muxuu soo bandhigay hees ma heesi karo anigu waxaan lacagta lagu bixiyay ma garanay wadadkan Soomaaliya jooganiyo lacagtu waa diyaar kamaradu waa diyaar meesha waxa jooga dad ilaahay ma garanayay aad soonayso in la yiraahdo qofkaas si macna u yeela dad la laaba jooga meesha ma fahanti nin dabada dumar ka shaqeynay marka siyaasadda baan ku soo noqonay King Busi waxa aan galama rabin marka waxa weeye Aweys Bafo sababta horta mid baan horta reer gelin baan bixinayaa marka la isbar bandhigo Aweys Bafo iyo King Busi waxa sharaf badan 100% sharaf badan Aweys Bafo qalad bay ka dhacay raalaad igu qaatay Aweys Bafo ayaa karaama dhaama oo muslina oo immigrant islaamnimo lagu dhalay oo nin wanaagsan King Busi hatta Aweys idin soo dirmeen Aweys hatta reer Tanzania idin soo dirmeyno way Aweys baa ka qaalisan ba Aweys waa nin islaama Soomaaliya luqadda Soomaaliga ku hadlaya ka sharaf badan ka karaama badan marka labada nin inaas barbar dhigo qalad bay ahayd raalaad qalad ay ugu qaatay tusaale ma nigu jeeday okay marka waxa weeye waxaas halayna dhaafiyo lacagtii xalayto King Busi aad magaranaysa ku bixisana waa lagu cadaabaya oo diyaar garow lacagtaas lacag lagu cadaabay ay noqonaysaa waayo qof basadir la oo dhintay oo magaranaysa timaha hatta wallahi waxad moodaysa shaarku xirnaa war meesha Tanzania lagu dhaaf Soomaaliya nolol dhaanta Tanzania nolol kama jirto meesha ku soo metela Soomaaliya isagu sidoo eegi ma aragto qofka noocaas ah hablaha Soomaaliyeed ay soo sawir karaan qofka noocaas ah khamriga isku shubay aan meedhanay timihiisa ba aragto horta iyo garkiisa dadkan iyo to ma baqti dadkan jecelin war maxaa xaruweel miyatin xaruweelka
xaruuraalka waxa la yidhahdo taqaana xaruuraalka wuxuu ka xanaaqaa wixii udgooniyo wixii cadar dumarka xaalata ninkaas ka hoosta ka galay ama sawir la galay fadlan dhakhtar toos u tag ama coronavirus buu ku qaadsiiyey ama qaaxu qaba horta ninkan xanuun waa qabaa anu markaan arkay magarasa sorry ninka basadir raahdo markaan arkay ugu yaraan TB buu qabaa saas uu soo goday saas wallahi billahi marka saad u aragto hatta carruura hadii qof carruura ninka loo keeno la yiraahdo carruurta la yiraahdo shaydaankii baa halkan taagan oo la tuso magarasa basadir hadii carruurta Yurub joogto la tuso way saxanay wallah hadii basadir shaqada qoomka Soomaaliya oo ka qabanayo waxa weey basadir waa in la qabtaa way shabag lagu xidhaa shabagaas waa in la yiraahdaa waa la daawanayaa oo carruuraha lagu seexinay xaq wax kale oo uu sameyn kara inaga soo jirto carruurta habeenkii seexan weyda Muqdisho ka seexan weyda in la yiraahdo basadir uu seexan waayo hebel caani u cab waayo oo kale ndaas bil wani wallahi waan dhaadagti wallahi dadkina basadir la galay sawir ya war heer reer Muqdisho horta waxaan aad ugu amaanaya reer Soomaaliland horta mid ay ku fiican reer Soomaaliland waxay soo macsuuminayna bawla la raado bawla Afrika dhan bacaankay jaamacadaha iyo lectures ka bixiya wallahi ninkaas waa nin caalami hargeysa lagu soo macsuumay jaamacadu furay idinkuna waxa soo macsuuminaysaan kii uu liitay oo waliba daawis baafog waa qaad weyn la barbar dhigo yaa barbar dhiga qof waalan oo nolosha ka dhacay iyo soo sheega oo Soomaali ahay qof Soomaali aan ahay okay waxaan barbar away magalasa ninka la yiraahdo basadir waxaan barbar dhigaya madax washkax kala maartay ka isaguna Ugandiska maxaa magaciisa madax washkax miyuha basadir iyo madax washkax hadii la isbarbar dhigo keeba wanaagsan waxa wanaagsan baa la oran karaa madax washkax baa dhaama marka reer Muqdisho idinkuna waxa soo magac dooli no dooli lama barbar dhigo qof baa wuxuu soo qoriyay dooli may dooli lama barbar dooli waa fanaan caana magarasay oo wadankaas Ifarwana Afrika soo dhashay waa fanaan caana weeyaan dooli milyaneer weeyaan lacag haysta dooli diyaarada airjet soo raaca dooli xataa qof Soomaaliya oo magarasa dhaqaale ku gaaray ma jiro dooli kulaha war dooli ma ahan min miskiina ma laakiin kan Tansaaniyaanka shaarka uu xiran yahay xafladda ku joogay ayuu riwaayad walba ku soo metelay xataa shaar ma haysto ya xataa shaar uu haysta Anderson Cooper soo qoriyay Anderson Cooper na waa kaas waa makhnuud laakiin kaas nolol buu haysta Anderson Cooper na makhnuud weeyaan laakiin ma waxaan ka hadlayaa fanaan dooli wadanka u dhashay magaranayay Afrikos waa nin dhaqaalaha laha diyaarada raaca dad badan ku xidhan yihiin fanaan weyna marka basad haduu kaaso iman la Soomaaliya haduu ma Soomaaliland iman la aqoonsiga i'tiraaf buu keenay laakiin basadir shaarka uu ku go'dul go'ay waxa weeye waa qof magaranayay baahi ka muuqato waa qof baaba ah kabuhu la soo galay xataa eega kabuhu riwaayada kuma talay kaba bari hore la isticmaali jiray oo meel lagu tuuray gudaafada ku soo helay malayna ma faham marka waxa weeye niyo qofkaasi ma yaani qof shakhsi xataa popular maaha laakiin dadka popular ka caadiga soo macsuuma laakiin basadir oo kale meesha in la keeno waa ceeb bay nagu tahay waayo qof sharaf la maaha karaamo ma laha wadankiisa kingi buusi baa lahada war fanaaniinta ma garanayay kuwa waaweyn marka ninkaas oo kale fanaan dooli oo kale waa nin 5 milyan baa ku xiran dadka ku xiran baad arkaysaa 5 milyan baa ku xiran marka fanaan dooli haduu Soomaaliya iman la ka war nada qalca imika maalin dhawto wasiir dubbe muxula wasiir dubbe wuxuu ahaa nada qalca wadanka imanaysa marka waxaan ka baxaya qodobkan ka baxaya waan cambaaraynayna wadanka waa inuu dankaasi umada laga qabtaa islaamka oo shaqadaas ninkaas hablaha laga qabtaa okay marka waxaan ku sii soconaynaa siyaasadii marka waxa weeye Fahad Yaasiin baan markaa idin rabaa inaan idin sheego Fahad Yaasiin horta waa imanaya ma berri buu imanaya ma saadan buu imanaya lama garanayo
fahad yaasiin libaaxi waa soo socdaa, cadaymihiina waa soo sidaa, cadaymihiina waa soo sidaa. marka waxaan idin leeyahay MBB waxaan leeyahay ha sugin waaya, ninkaa suga, intaa hadhay suga, ninkaa hadadejisana waa imanaya. diyaaradda Turkish Airways fahad mar dambe ma soo qaadan doono, waayo diyaaradda Turkish Airways dee Jabuuti baaba magaranaysa diyaaradaheeda dadka kala degeysa. Turkish Airways ilaa ay tallaabo ka qaadayso oo magaranaysa Jabuuti kolley dee waxa weeye magdhow badan baa laga qaadaya, sharciga la marinayaa, sharciga caalamiga waxaasa la marinayaa. markaa ninkaasu diyaarad Turkish Airways ma soo raacayo, wax kalena ma soo raacayo. fahad yaasiin diyaarad airjada ama magaranaysa helicoptera, aduu diyaarad magaranaysa gaara ayuu soo raacaya, muqdisho saasuu ku imanaya. fahad yaasiin na waa soo socdaa hadduu imaadana iminka horta sheekadii ikraanyadoo fashilantay, hadduu imaadana sira intaa ka badan ayaa laga filaya. fahad sir intaa ka badan, ikraan way dhimatay iyo way nooshay, wax ka badan baa laga sugay. waxa uu fahad soo wadaa bal magaranaysa waxyaabihii heshiisyadii uu soo galay Roble markii uu Nairobi tagay heshiisyo sharciga dowladda Soomaaliya baalmarsan oo dowladda liddi ku ah ayuu soo galay. waxaa la hayaa dokumentiyo badan oo cadaynaya magaranaysa Roble markii uu Uhuru Kenyatta la kulmay lacago akawno meelo la mariyay oo uu qaatay. waxaa la hayaa arrintii badda in magaranaysa Roble uu yidhi waan ka tanaasulaynaa dhaqaalaha la isiyo aniga iyo saaxiibaday. qodobka afraad magaranaysa fahad maaha, yani sheekadii ikraan buu hayaa maaha. fahad waxa loo diidan yahay badii la gatay uu Roble imika magaranaysa ogolaaday, dhaqaalaha magaranaysa uu ku soo qaatay, waxyaabihii magaranaysa Uhuru Kenyatta ka wada hadleen, waxaas oo dhan buu ninkaas soo halay. sir buu hayaa ninkan, sir weyn buu hayaa maaha, yani ikraan iyo waxaas maaha. ikraan waa sheeko kooban wey, waa sheeko kooban oo fashilantay taas. laakiin fahad waxaan rajaynaynaa inuu si nabada ku imaado, diyaarad gaar u soo qaadanaya. waa nin diblomaasiya, maadaama uu diblomaasi yahayna horta ma soo sheegayo xilligu imanayo, ma soo sheegayo, taa sugina. qofka idinku dhahay fahad baa xilligaa imanayana, fahad ma yaqaan ninkaas. fahad waa diblomaasi, xilligu baxayo iyo xilligu soo galayo nobody knows, qof yaqaana ma jirto. farmaajo inuu yaqaano ma sheegin, laakiin fahad waad baran doontaa. barnaamijka intaasan kusoo gabagabeynayaa. hadduu muuqaalku sii gaaro sii shaargaree, pagekana follow and like soo dheh. waa salaamantiin ummadda Soomaaliyeed, xaqa guuleysanaya. dhammaan dadka xaqa taageersan, fahad taageersan, waa xaqii dowladnimada taageersan. waxaan leeyahay guliyo gobonnimo. Roble buulkaa la dhigay, doorashadiina arrimihii doorashada Puntland garowa lagu qabanaya 21 kama qeyb gelayo. waxaa dowladda federaalka farmaajo ayaa cid u dir doona, ama Mahdi ama farmaajo degi doona. arrintiina waa laga wareejiyay. Roble buulka ayuu ku jiraa, wax shaqo uu hayaa iminka ma jirto. Roble waxba ma garanaysaa, niyadda ha u dhisna. haddaad doontaan niyadda u dhiso waxaad tirahdaan Roble waa geesi, iska soo qora dhib ma laha. laakiin Roble walla inaan waxba gacanta ku haynin. Turkiya Intelligence Agency baa sira badan keentay, may waa loogyahay Turkiga waxba sira badan buu keenay. Kenya lafteeda dee fahad yaasiin dad buu ku leeyahay, sira badan baa la keenay. Roble ayaa dhiiqo lugaha kula jira, waana sababta doorashada looga wareejiyey ee maamul goboleedyada ay u diidan yidhahdeen Roble ma aha nin ma garanaysaa shaqo badan haya. madaxweynihii baa shaqadii ka qaaday. markaa Roble waa tegaya si tuqaan tuqiya. Roble waa tegaya si tuqaan tuqiya. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu.